الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ii soo dhawaada meeshaan idiga fiirsanaysaan waa janalkayga Aamina Shiiquna anigana waa Aamina Shiiquna maanta qisada ay idin wado waa qiso calool xumo ah subxaanallaah farxadna ku jirto waxaan rabaa intaan qisada u guda galin in aan marka hore idin sheego qisadan meesha aan ka keenay qisadan waxaan ka soo turjumay oo idinkaga sheekeynayo qofkii ay ku dhacday aniga aad ay calool xumaysay subxaanallaah waxay ku socotaa family ka kooban ama ka koobnaay 4 qof laba cunug iyo hooyo aabo qofta ma aragtay doorka weyn ka qaadan doonta qisadeena waa hooyada oo familkan waaye Anita ala dhaha Anita Bauman ala dhaha Anita waqtigan ay waxas ka sheekeynayso waxay jirtaa 74 sano 74 sano jirtaa ha Anita waxay dhashay laba caruur ah hal gabar magaceeda nooma sheegin laakiin gabadha filinka qayb weyn sheekada qayb weyn ka qaadan doonta la noo sheegay gabadhaasna magaceedu waxa la yiraahdaa Gabriel waqtiga qisadan sheekadan laga sheekeyn doonana waxay jirtaa Gabriela waxay jirtaa iska sax magaca 54 sano jirtaa okay hadaba sheekadan inoo guda galo Anita ayada ka sheekeynayso waqtigan ay waayeelka noqotay arinkan waxay ku nooleed Berlin markaas ay labada cunug haysato sanadka markuu ahaa 1960kii Anita waxay isku dayday inay baxsato ay ka baxsato gurigeeda sababtana ay tahay ninkeeda ayaa ahaa nin xun oo dhibaateyn jiray oo garaaci jiray oo noloshana iskuma ay fahansaneen marka aan si fiican idin fahansiiyo dhinacaas ay ku nooleed Berlin waqtigaas Jarmalka wuxuu ku sugnaayay xaaladii darbiga la dhax dhigay darbigii Berlin qof aan maqli ma jiro maya waqtigii darbiga la dhisay oo labadii Jarmal la kala kaxeeyay oo qofba qofka kale uu salaami karin oo labada dhinac marka dhinacaas waxa la yiraahdaa DDR la dhaha markii la soo gaabiyo waxa haysatay midowga Soviet Ruushka haysta balaa ku dhacdo Ruushaan banacba waaba cadaabta adduunka la keenay Ruush marka wuxuu sameyn jiray Jarmalka dhinacaas jooga aad loo cadaadin jiray oo ma awoodi jirin Jarmalka kale inay soo ahdaan ka waran adiga Muqdishaan ka soo qaadayna anagoo Muqdisho joogno oo darbi lana kala dhax dhigay oo qofkeena qofka kale uusan u gudbi karin subxaanallaah waliba tan ugu xun waxay ahayd maalintii darbiga la xiray waxa jiray caruuro oo loo geeyay xanaanada la geeyay saaka hooyooyinkooda aabooda geeyeen oo subaxiina galabkiina la xiray darbigii ilmihii xanaanada la geeyo kale tusaale ahaan iyo hooyadoodii waalidkooda dib isku may arkin mana ay awoodi karin inay dib isku arkaan sheekada inoo guda galaya waxay isku dayday maalmaha kamid inay baxsato labada caruurna qaadato boorsadeeda dharka ku guratay way baxday waxay soo raacday tareen Jarmal qaybtiisa kale nasiib daro xaafadda tareenka ay ka soo raacday markuu geeyay meesha oo centralka oo tareenada iyo basaska laga raaco Bahnhof la dhahaa Jarmal lagu dhahaa markaas waxa qabatay askartii ilaalinaysa meesha waayo hawl kale ma la ayaga labada Jarmal ay kala ilaalinayaan waa la qabtay maskiintan ayadii labadeeda gabdhooda la qabtay kadibna xabsiya la geeyay labadeedii caruurna waa laga qaatay waxay ku jirtay xabsiga hal sano ku jirtay 6 bilood ay ku jirtay 7 bilood meelahaas ay ku jirtay waxa laga soo daayay xabsiga sanadka markuu ahaa 1961 bishii koowaad laga soo daayay waxaana la yiri waxay rabtay inay baxsato ay ka soo baxsato meesha mar kale laakiin ma rabin inay ka tagto ayadoon ilmaheeda wadanin sidaas darteeda qof ayada oo ay is yaqaanaan ayay weydiisatay ay ka codsatay in uu geeyo meesha ilmaheeda ay ku xariisan yihiin oo kadibna ilmaheeda ay la soo fakato sidaas darteed habeenada kamid ah waxay u soo dhaceen xanaanada waa waqtigaas waqti xun ah eedo ay ilaala adaga saaran waayo ilmahan meesha ku xariisan waa ilmo hooyooyinkood laga soo xoogay marka way soo jabiyeen albaabkii soo jabiyeen habeen madow way soo galeen markay soo galeen ilmihii ay raadisay waxay aragtay gabadhii yareeda ugu yareeday aragtay koodii hore tii yareeday soo xambaarsatay ayadoo tii kale raadi isdhayso nasiib daro ilaaladii xanaanada ayaa ku soo kacday kadibna way soo ordeen gaari ay wateen oo gaarigooda ku soo dhaceen laakiin ha soo baxsadaane intee imaan doonaan way soo ordeen markay soo ordeen waxay imaadeen waxa qabatay control meel kasta siliga ku xiran meel kasta askara taagan
waxaa la yidhi gaariga joojiya, way joojin waayeen, waxay damceen inay gudbaan, nasiib daro siligaa ku xirnaa meesha, gaarigii wuu istaagi, waa gudbi waaye. kadib gaarigii kasoo degeen, waa lasoo xabadeeyey, siligii waxay kala booday gabadhan maskiinta ah, gabadheedii yareed, tii weyneedna waa laga soo tagay. way soo baxsatay. markay soo baxsatay sheekadii meeshay ku ekeed, kadib sheekadii waxay dib u bilaaban doontaa 54 sano kadib. 54 sano may 50 sano kadib gabadhan laga soo tegi doono, sheekadan qayb weyn ka qaadan doonto. Gabriela waxay jirtaa 4 sano jirtaa markaas. kadib waxaa dhacday inay gabadhii yareed saas uga soo tagto oo tii kale ay soo qaadato. Anita waxay guursatay 4 sano kadib, ninay guursatay, waxay dhashay wiil. wiilkeeda waxaa la yiraahdaa Michael la dhahaa. waxay codsanaysaa marka, ay ka codsanaysaa TV-ga la yiraahdo Jarmalka Sat.1 la dhaho, ay ka codsanaysaa in loo raadiyo gabadheeda. kadib waxaa dhacayso marka gabadheeda in la raadiyo. markay u imaato gabadhan oo TV ka socoto, waxay weydiinaysaa, ay wareysanaysaa xaaladda siday ahayd maalinkaas. waa la xiraa, horta xabsiga aad loogu dhex garaaci jiray, waa lagu dili jiray, waa lagu bahdili jiray, laakiin nasiib wanaag markii la soo daayay oo gabadheeda yarta ay la soo fakatay, yacni waxaa la yidhi sawiro. waxay tiri cunug adiga aad dhashay markaad soo qaadato, midka kalena aad meesha uga soo tagto, waxay tiri calool xumadeeda, waxay tiri waa waxaan la koobi karin. maamadan 50 sano waxay ku nooshahay, 22 sano jirtaa arrinkaas markuu dhacayo, maanta 74 sano jirtaa. arrintaa waxay la nooshahay yacni 50 sano uruga iyo ciil iyo xanuun, habeen walbana ma seexato. sidaas darteeda wiilkeeda Michael ayaa codsanayo in gabadhan loo raadiyo, TV-gu u imaanayo, walaashiisa la raadiyo si hooyadiisa ay u nasato. waxay leedahay maxaa codsanaysaa markii la dhaho, waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa intaanan dhiman, maadaama aan ahay qof da' ah, inaan gabadhayda mar kale arko. haddaba meeshaan ay sheekada raadiskeeda ka bilaabanaysaa. naagtan way soo baxaysaa, waxay kasoo raadinaysaa Berlin, ay kasoo raadinaysaa. nasiib wanaag magaceeda lama bedelin qoftan. way soo raadinaysaa, markay soo raadiso waxay imaanaysaa Berlin. markay imaato waxay helaysaa adreskii Gabriela la helayaa. albaabkay ku garaacaysaa, waxay leedahay waan ku baahan inaan kula hadlo, fadlan iga fur albaabka. way soo daynaysaa, waxay leedahay waxaan ka socdaa hooyadaada ku raadinaysa, ma laga yaabaa inaa u xiistay. markaasay leedahay aniga uma xiistin hooyaday, mana raadinayo, maxayse iga raadinaysaa? wallahi waa calool xumo, maxaa yeelay gabadhan waxaa loo sheegay wax kala loo sheegay. xaasidnimada dadkaas ay samaynayeen dhinacaas Jarmalka haystay waxay ahayd yacni waxaadan sawiran karin. ilaahay subxaanahu watacaala hanaga najiyey anaga inta islaam wadana Maxamed. waxay leedahay maxaa dhacay, maxaa saas u leedahay hooyada ugu xiisin? waxay leedahay aniga hooyaday way i tuurtay, xanaanada uga sheekaysay, way i tuurtay, aniga hooyaday ima i rabin, waa la igu bariyay inay i qaadato, waxay igu tiri ma rabo, danna kama lihi, saas darteed way i dayacday. aabahayna wuxuu ahaa nin alcoholic ah oo daroogada aad u isticmaala, sidaas darteed ayaa waxaa la ii geeyay leedahay family oo i haaya aniga. familkiina waxay leedahay si xun uu ila dhaqmay, oo ninkaas si xun ila dhaqmay, oo si qaasa wuxuu ku sameeyay ma la sheegin, laakiin waxay leedahay si xun uu ila dhaqmay. sidaas darteed ayaa xanaanada la igu soo celiyay leedahay. aniga informationkaas aan haystaaye, hooyaday maxay ii raadinaysaa? waxaa loo sheegaa taariikhdii oo dhan loo sheegaa in aabaheedna alcoholic ahayn, oo hooyadeedana aysan tuurin, oo hooyadeed xabsi la geliyey, oo ay la soo baxsatay walaasheeda ka yar, oo ayadana ay la soo baxsan weysay. hooyadeed waxaa loo sheegaa 50 sano oo dhan inay urugii ciil la nooshahay oo ay raadinayso. wallahi way iska oynaysaa, calool xumo waaye. cunigaaga ha lagaa xoogo, ha lagaa qaato, xabsi ha lagu geeyo, ha lagu jirdilo, wixii la rabo, waxyaabaha afka qabanaynin, wixii la rabo ha lagugu sameeyo. Jarmalka waxaa lagu sameyn jiray dhibaato aad iyo aad u badan raggooda dumarkooda. dumarkaba ha u badnaadee, maxay kula tahay in dumarka loogu sameeyey ilaalada intaan la eg, ilmahana loogu sameeyey ilaalada intaan la eg? sababtoo ah ilmahana si xun loola dhaqmi jiray, dumarkana si xun loola dhaqmi jiray. waxaa laakiin nasiib dare ah inaan anagii muslimiinta ah isku qasnay laba barnaamij oo ah dadkan waxay ahaan jireen in anaga waxaan nahay, anaga xaqaan lahayn, xaqeenaan haysan jirnay ilaa haddana haysanaa, laakiin dadkan xaq iyo xuquuq ma lahayn. sidaas darteeda loogu sameeyey xaqan oo ah in oo loo sameeyo dad oo dumarka difaaco iyo wasaaradda ilmaha iyo maxaan ku dhahay iyo wixii la mid ah. markaas waxaa dhacayso markaas kadib waxaa dhacday
waxay leedahay ma jeceshaa hooyada ina aragtid waxay leedahay dabcan haddii warkii la ii sheegay uusan ahayn war jiro hooyada inaan arko ayaan jeclaa nasiib daro dhibaataa dhacayso hooyadii waxaa cudura kusoo boodaayo oo si ma aragtay oo emergency waxa loo dhigaa isbitaal intii arinta lagu jiray mudday qaadanaysaa kadib way soo roonaatay haddana xaaladii degdeg ah ay gashay waxaa laga helay kansar laga helay maamadii Anita waxaa laga helay kansar oo waxaa loo sheegay inaysan muddo badan noolaanaynin laakiin nasiib wanaag gabadheedii waa loo soo helay intay nolosha ku jirtay koomada ay ku jirtay waa loo geeyay gabadheedii markay aragtay gabadheeda hal maray indhaheeda soo kala qaaday markay soo kala qaaday waxay tiri gabadhayda gacantay qabsatay kadibna Anita nafta ayaa ka baxday aniga waxa isdhihi jiray filmaanta qaarkood markii la fiirsado sida loo jilay waxa isleedahay wax la isku soo aadiyo way laakiin wax xaqiiqooyin jira way wax sawiran way yaani xaqiiqo ma ila ahayn arintaas hadaan markaan fiirsanay waxay leedahay hooyo markay dhahdo idana gabadhayda ay dhahdo nafta ka baxayso Anita way dhimanaysaa maamadii waa yeesheed nasiib daro iyo nasiib wanaag يعني انت dhiman ka horay aragtay hooyadeeda laakiin hadda nasiib darada waxay tahay lama ay noolaani farxad waqti lama qaadanin Gabriela hooyadeeda 2 bilood kadib markii maamada la aaso ayadii walaalkeeda is soo raacayo oo waqti isla qaadanayo kadib waxa la wareysanaa xaaladaadii noloshaada ka waran waxay leedahay famil inaad haysato waa wax kale leedahay ani waxaan ku jiray leedahay nolol dhimatay oo cadaab ah oo ehel la'aan laakiin hadda noloshayda aadan u faraxsanahay inkastoo aan hooyaday waqti la qaadanin laakiin hal mar inaan arkay codkeedana maqlay aad iyo aad ugu faraxsanahay marka waxay leedahay sidaas darteeda waan idin mahad celinayaa noloshaydana farxadda maanta aan ku noolahay lama koobi karo barnaamijkan wuxuu ku dhamaanayaa walaalkeedii ayadoo waqti isla qaadanayo oo sheekaysanayo qisadeeni maanta halkaan aan ku soo gabagabeynayna walaalayaal waxaan ka codsanayaa ama idin ka codsanayaa si wada jira muuqaalka inaad like aad saartaan oo channelkan aad subscribe dhahataan haddii aad tahayna dadkii hore noola joogay aadan kaaga mahad celinayaa qalbigaad ku taala waan idin jecelahay insha Allah bari waxaan idin soo deynayaa qiso ku saabsan saliga nabiga gabar cudur xun ku dhacay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga caafiyay labahan idin kaga soo dhigay waliba tan kalena kadiisa idin kaga dhigaa way ka sii qatarsan tahay insha Allah marka waxaan isku ognahay khayr far badan isku ognahay waxaan rabaa mar kale inaad ogaataan ulajeedada aan u soo jeedinayo qisooyinkan waxay tahay walaalayaal anaga maadaama uu dalkeena burburay oo burbursan yahay ummadeena Soomaaliyeedna dhibaato far badan ay ku dhacday oo niyad jab aad iyo aad weyn uu nahayo anaga qaasatan hadaan hay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa qalbiga inaan dhisano maxaa yeelay Jarmalka aad arkaysaan maanta intaan la eg dhibaatadii iyo xayaatadii iyo bahdilkii lagu soo nooleeyay ma aha wallahi alcadiim wax aad sawiran karto horumarkii intaan la egna waxa keenay dhibkii loo geystay dartiisa anaga Soomaali hadaan maanta darbina lama dhaxdhigin lisuma kaaya diidin inkastoo si siyaasadaysan waxaaba dhaantaba darbiga si siyaasadaysan la noo kala dilay darbiga haddana dhex yaalo waxa waaye waa darbi doqonnimo iyo darbi qabyaaladeed waxaan rabaa inaan u bishaareeyo qof walba oo Soomaali ah waxaan rabaa inaan niyada u dhiso qof walba wadani ah sideedoo kale in laga bixi karo arinkan oo insha Allah aan arki doono anagoo 60 jira ah aan ka sheekeynayno Soomaaliya markaan ahayn 30 jirada iyo 20 jirada noocay ahayd iyo qaababka ku dhalanay biidnillaahi albaari waana rajaynaa ilaahayna waa ka baryayaa inuu sida noo dhaamo waalidiinteena Allah u naxariisto inta nool inta dhimatay ilaahay anagana nooga daba naxariisto ilaahay subhanahu wa ta'ala hana xifdiyo ilaahay qoysaska muslimiinta noo xifdiyo awlaad Allah noo xifdiyo dalka iyo diinta iyo dawladnimada Sheekh Cabdi Xirsiya ka bartay ilaahay subhanahu wa ta'ala noo xifdiyo dhamaantii waa idin jecelahay waa idin salaama qisada inta ku soo gabagabeynaya muuqaalkeenan muuqaalka xig inta ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa ilaahay amaanadiisa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh